dhaqaalaha Soomaaliya ayaa soo kabanaya iyadoo la filayo inuu sanadkan 2019 kobco 3%, halka uu sanadkii tagay ee 2018 ka kobcay 2.8% sida ay faafisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa hay'adda IMF. sidoo kale saadaal ahaan sicir bararka ayaa hoos u yara dhici doona isagoo noqonaya 3%, isagoo ka soo dhacay 3.2 oo uu joogay xilligan oo kale sanadkii tagay sida ay baahisay maanta hay'adda IMF. dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu wadaa soo kabasho taageerayana howlaha dib u dhiska, isgaarsiinta iyo qaybaha ganacsiga, ayay tiri Alison Holland oo ah hogaamiyaha IMF ugu qaabilsan ka wada hadalka barnaamijka Article IV program kaasoo khuseeya dib u habaynta hanaanka dhaqaale ee Soomaaliya oo Nairobi ka hadlayay. dhinaca kalena war qoraal oo ka soo baxay hay'adda lacagta adduunka ayaa lagu sheegay in hay'adda iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isku afgarteen ka gudbidda wajiga saddexaad ee barnaamijka deyn cafinta, loona gudbay qaybta afraad oo soconaya bisha May ilaa bisha July ee sanadka soo aadan ee 2020. hay'adda lacagta waxay u soo jeedisay madaxda Soomaaliya si joogtaynta wadadii guuleysatay ee looga gudbay wajiyadii hore ee barnaamijka kooxda la socodka SMB. Alison Holland, hogaamiyaha kooxda wada hadalka ee IMF, ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uga mahad celisay siday uga go'an tahay hirgelinta shuruudaha barnaamijka deyn cafinta iyo sida xooggan ee ay ugu dhiiran yihiin. hay'adda lacagta adduunka ayaa dhinaca kale bogaadisay korarka dakhliga soo gala dowladda federaalka iyo dadaalka hagaajinta maamulka maaliyadda. Cabdisaaq Jubba, Seattle.